waa kuma Soomaaliga loo xilsaaray amniga gobolka muhiimka ah. Bisha Agoosto ee sanadkani Kenya waxaa ka dhici doonta doorasho xasaasi ah oo lagu dooran doono golaha deegaanka, xildhibaanada labada aqal, baraasabyada iyo weliba madaxweynaha cusub. Waxa xiisaha gaar ku yeelaya doorashadan ayaa ah in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu xilka banayn doono kadib ku dhawaad 10 sano oo uu jagadaasi hayay. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalkani Kenya, Raila Odinga, iyo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto ayaa hadda ugu cadcad ragga u tartamaya doorashada madaxtinimada. Ruto ayaa ka diiday heshiis ay sanadkii 2018 ay gaareen Odinga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta, kaasi oo lagu soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyay labada nin. Hadda waxay u muuqataa in Uhuru iyo Raila isku dhinac yihiin, ayna doonayaan in Odinga uu bedelo Kenyatta. Xilli ay soo dhawaatay doorashada ayaa waxa isu soo taraya walaaca laga qabo amniga goobaha ay ka dhici karaan rabshadaha ka dhasha doorashada. Arrintaasi ayaa horseeday in dowladda ay aad ula socoto dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta iyo hadallada ay ka jeedinayaan goobaha dadka isugu soo baxaan, iyadoo laga cabsi qabo in hadallada xanafta leh ay horseedi karaan in dagaal qabaa'il oo uu dalka ka dhaco sidii sanadkii 2007. Maxaa tallaabaha ay qaaday dowladda si arrimahaasi looga hortago? Gobolka aadka looga cabsi qabo inay dagaalo ka qarxaan oo ah gobolka Rift Valley, kana kooban 14 deegaan, isla markaana ay degan yihiin qabaa'ilo kala duwan, ayaa waxaa aad loo xoojiyay ammaankiisa. Wareegto ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani Kenya ayaa lagu sheegay in nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Axmed Macallim oo ku magac dheer Kadenge uu yahay isku duwaha arrimaha amniga ee gobolkaasi. Maxamed oo uu ku dhashay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, isla markaana waxbarashadiisa hoose iyo tan dhexeba ku soo qaatay Garissa, isagoo hogaaminta iyo maareynta amniga iyo mashaariicda dowladda ka soo bilaabay heer tuulo, kadibna loo magacaabay inuu heer degmo hogaamiyo. Markii ay Kenya dastuurka cusub meel marisay ayaa Kadenge waxaa loo dallacsiiyey inuu gacanta ku qabto amniga Garissa, xilligaasi oo ay qaraxyadu iyo amni darrada ay aad u sareysay. Waxa uu ka shaqeeyay sida magaalada Garissa iyo nawaaxigeeda uu nabad uga dhigi lahaa, isagoo adeegsanayo xeelad diblomaasiyadeed oo odayaal dhaqameedka kulamo la qaadan jiray si caruurtooda aysan ugu biirin ururka Al-Shabaab. Hase ahaatee, marka ay qaraxyadu soo bateen ayaa waxa uu qaatay go'aan adag, taasi oo sababtay in ciidamada ay bar kontaroolo ka samaystaan waddo walba oo magaalada ah, isla markaana xabsiga uu u taxaabay cid walba oo looga shakiyo inay taageersan tahay amaba ay qayb ka yihiin Al-Shabaab. Wax ka yar 2 sano gudahood ayuu ku bedelay amniga Garissa, taasi oo uu shacabkana kaga helay kalsooni, sidoo kalena dowladda sare ay u aqoonsatay hawsha uu qabtay in uu bilad uu ku guuleysta. Wixii ka dambeeyay doorashadii sanadkii 2013, Maxamed waxaa loo soo wareejiyay inuu ka shaqeeyo magaalooyinka waaweyn sida Kisumu, Mombasa iyo Makueni oo iyaguna amnigooda uu sugay. Shaqadiisu waxay tahay hogaaminta dhammaan ciidanka gobolka oo toos uga amar qaadan doona, maadaama aysan dowladda dhexe xilkaasi ku aaminin baraasabyada. Sidaasi daraaddeed, dowladda Kenya ayaa iyadoo ka cabsi qabta gobolka Rift Valley in ay shaqaaqooyin ay ka dhacaan, ayaa waxay haatan u xilsaartay Maxamed Macallim inuu hogaamiyo amniga 14 ismaamul oo kala ah Turkana, West Pokot, Samburu, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo, Laikipia, Bomet, Nakuru, Kajiado, Kericho, Narok. Maxamed Macallim waxaa la shaqayn doona 14 gudoomiyaal degmo oo amniga u xilsaaran, kuwaasi oo ay ku jiraan saraakiisha ciidamada iyo sirdoonka. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa duqeymo ka fuliyay koonfurta Tigray, gaar ahaan magaalada Korem iyo nawaaxigeeda. TPLF ayaa ku eedeysay dowladda Ethiopia inay duqeymo ka fulinayso goobo dad rayid ah oo ay ku sugan yihiin. Duqeymahan cusub ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad badan, inkasta oo aanan tirada rasmiga ah lahaynin. Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujinaysa duqeymaha diyaaradaha ciidamada Ethiopia ay ka fulinayaan waqooyiga Ethiopia. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay inay dambiyo dagaal yihiin duqeymaha lagu garaacayo bartilmaameedyada aanan militariga ahayn. Maalintii saddexaad oo xiriir ah ayaa dagaalo qaraar waxa ay ka socdaan waqooyiga gobolka Afar. Dagaalkan oo u dhexeeya ciidamada Tigray iyo kuwa deegaanka Afar oo taageero ka helaya militariga Ethiopia ayuu dagaalkani u dhexeeyaa. Diyaaradaha dagaalka ayaa si weyn uga qayb qaadanaya dagaalka. Kumanaan shacab ah ayaa ka qaxay deegaanada lagu dagaalamayo. Dagaalka ayaa aad ugu socda dhinaca xadka Tigray oo Afar ah,
waxaana soo baxaya xogaha sheegaya in uu khasaare baaxad leh ka dhashay dagaaladani. Maxkamadda sare ee Somaliland oo go'aan ka gaartay furista ururada siyaasadda. Maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax-bannaanida Somaliland ayaa maanta go'aan ka soo saartay arrinta furista ururada siyaasadda ee Somaliland. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in dacwadda la xiriirta furista ururada ay 2 toddobaad ka hor u soo gudbiyeen xubno tiradooda ay gaarayso 24 siyaasi. Waxay intaa ku dartay in iyadoo la eegayo qodobo dastuuri ah oo qaarkood sheegaya in muwaadinku uu xaq u leeyahay in la doorto iyo inuu wax doorto, ay go'aan ka gaartay. Go'aankan maxkamadda sare ayaa imaanaya iyadoo arrinta furista ururada siyaasadda Somaliland uu ka dhashay khilaafkii ugu weynaa ee siyaasadeed. Xisbiyada mucaaradka ayaa si weyn uga soo horjeestay kaabista iyo wax ka beddelka lagu sameeyay xeerkan inuu dhaqangal yahay. Madaxweynihii xilka laga tuuray ee Mali oo geeriyooday. Madaxweynihii hore ee dalka Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, ayaa geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 76 sano jir, sida ay sheegeen qoyskiisa iyo saaxiibadii. Sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa haleelay xanuunka faaliga, hase yeeshee hadda lama xaqiijinin xanuunka dhabta ee uu geeriyooday. Maanta oo Axadda ayuu ku dhintay gurigiisa oo ku yaala caasimadda dalkaasi ee Bamako, sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen xubno ka tirsan qoyskiisa. Mr. Keïta ayaa dalka Mali uu hogaaminayay muddo 7 sano ah oo ku ekeyd sanadkii 2020, waqtigaasi oo xilka loogu tuuray Afgembi kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda. Dhibaatooyinkii dhaqaale iyo muran dhanka doorashooyinka ayaana dab ku sii shiday dibadbaxyadii looga soo horjeestay xukunkiisa. Toddobaadyo kadib markii xilka laga tuuray islamarkaana uu ku dhacay xanuunka faaliga, ayaa loo qaaday dalka Imaaraadka Carabta, halkaasi oo lagu soo daweeyay. Dhakhaatiirta Suudaan oo ka cabanaya weeraro uga imaanaya ciidamada ammaanka. Dhakhaatiirta caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa ka dibadbaxaya waxa ay ku sheegeen weeraro ka dhanaa shaqaalaha caafimaadka tan iyo markii ay dalkaasi ka bilowdeen dibadbaxyo ay dhigayaan dadka ka soo horjeeda xukunka militariga. Mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Khartoum oo lagu magacaabo Hudda Ahmed ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegtay in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmaysiisa ay ku fureen cisbitaalada. In ka badan 60 qof oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa lagu dilay mudaharaadyo loogu soo horjeeday Afgembigii dalka Suudaan oo ka dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay. Dhowaan ayay ahayd markii mas'uuliyiinta dalka Suudaan ay ruqsaddii kala noqdeen telefishinka Al Jazeera ee laga leeyahay dalka Qatar, kaa oo lagu eedeeyay in si aanan habboonayn ay u tibiyeen dibadbaxyada mucaaradka. Bishii November ayaa Khartoum lagu xiray madaxa laanta Al Jazeera ee dalka Suudaan, iyadoo 3 beri kadibna la sii daayay, muddadaasi oona wax maxkamada la soo taagin. Dadkii ayay telefoonadii ka aruursadeen si aanay caawimaad u dalban. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay weerar ay geysteen kooxo loo malaynayo inay yihiin Islaamiyiin oo ka dhacay waqooyiga dalka Burkina Faso. Saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ayaa sheegaya in rag hubeysan ay weerareen tuulada Namsiguan ee gobolka Bam Sabtidii shalay. Waxa ay gubeen guryo, waxayna halkaa ka qaateen hanti ay lahaayeen dadka halkaa ku nool. Waxyaabaha ay dadka ka qaateen waxaa ka mid ah telefoonadii gacanta si aanay dadka u dalban caawimaad. Fallaagada ka jirta dalkaasi Burkina Faso ayaa maalin walba dad badan dhib u geysta, gaar ahaan xubnaha ka tirsan ciidamada amniga. Waayihii la soo dhaafay kooxaha Islaamiyiinta ah ayaa ku sii xoogeysanayay gobolka Saaxil, inkastoo ay halkaasi joogaan ciidamo caalami ah iyo kuwa maxalli ah.